الحافلات كان أمانة سوية هاي وياش جوا كان عين أو مقالة بوهول وكل سابسية هاي ومد غير خاطمه ما يكشف شو عنده وبريها كان شهورة سياسية وحب وصوف وصاري وشيت كيبي هاي إن بلدرين كيجا كعبره أركتيها عن قبل أركتيها سياسية يصير عن حافظة هاي شهورة كابوشة كده حموضة وحي عن كقوة أما وحي عن كورنها سيدا نمشي تشيدين لها وكساب سيهاي وقورين بعض سيدا أتكور قبطان وحا دوانها السعودي شرر لوجو جوجل حاري أما وشيت كقدم بياوي هاي سيدي وهذا الوقت وغير لنا سوماليلاند runtii arrintaasoo ahayd arrin xukuumaddu isla qaadatay horraantii kadib markii la shaaciyey ama xukuumaddu ama madaxweynuhu ergadii uu u diray meesha leedaa caynaba noqodkoodii 5 qodob baana loo keenay 5taa qodob 4 qodob oo ka mid ihi waxa kama jiraan bay noqotay ama wax bulshada lagu sabayo ha ahaato marka horeba ama wax jiray oo Soomaaliland ka noqotay mid doontaba ha ahaatee arrintaasi waxay noqdeen 4taa qodob wax kama jiraan haddii taasi ay timina waxaa la gudboon maamulka Khaatumo iyo dadka reer Khaatumada sidii ay itijaah siyaasadeed ku yeelan lahaayeen khaasatan xukuumadda oo madaxweynuhu hogaaminayo weli waxaa ka muuqda ku dheganaansho maxaan ku rahdaa carcartiisa leh meelihii ugu dambeeyeyna haddeerto aad buu moodooni marayo anigu aragti ahaan ma qabo inay maanta habboon tahay in Somaliland wada hadalkeeda lagu degdego kow maadaama bulshada reer Khaatumo madax dhaqameed ismo garbo iyo systemka Khaatumo aad moodo in dabac weyn u dhaxayo maadaama bulshadu ama madax dhaqameedka iyo maamulka Khaatumo aad moodo xiriirka maanta u dhaxeeya inuusan ahayn mid maxaan ku raadayay hanaqaad ah dhinaca kale marka laga eego wacyiga iyo xaaladaha maamulka Khaatumo waqtiga ku sugan arrimahaas oo dhan marka dhinacyo badan laga eego waxaan leeyahay kuma habboona in shirkaasi uu sii socdo waxaan ugu habboonayn talo ka xukuumad ahaan laysla qoondeeyey laysla jaxjaxay meel laysla dhigay laysla ogyahay waxa lala gulo tegayo iyo waxa laga doodaya ay cad yihiin oo aan ogahay ma jirtaa ama xukuumaddu baa ay ogtahay haddii waxa lala gulo tegayo iyo cidda gulo tegaysaaba ay tahay wax jeebka madaxweynaha kaliya ku xareysan waray taadaas mid lagu tanaadayo ma mid lagu gaarayo mowqifyada iyo danaha aynu leenahay ma aha hadda hadalladana isaga inta badan ka maqlaan oo afka yiraahda waa maqlay madaxweynaha oo maalin khudbadeynayo oo leh hargeysa ma tagi doono waruma soconno hadda markuu sidaa leeyahay wasiir ka tirsan golaha wasiirada oo ka diray meesha la yiraahdo Ballacad baa ku sugan hargeysa oo dhanbaal khaas oo isaga ka socda sidii ummadda reer Khaatumo waxbaa naloo doortay midayn iyo xoreyn bay lahayd sumad bay lahayd way caddayd waxaad moodaa ama ay tahayba labadii sano ee lasoo dhaafay in madaxweynuhu ku hogaaminayay systemka Khaatumo dariiqii maxaan ku naloo idmo dariiqaan ahayn waxaa naloo bisleynayay sidii aan ugu dabacsanaan lahayn inaanu ka mid ahaanshaha ama ku dhawaanshaha siyaasadda Somaliland taasina shimbirtu qorqabasho biyaha kuma cabto waxaan ku rahdaa haddii ay la habboonaatay madaxweynaha
haddii ay la haboonaatay in talada lagu meel marayo ama wax lagu hogaaminayo ama ummaddan lagu dhaqayo miduu ku filan yahay haddii ay isaga ula muuqatay allah subxaanahu waqaadir mooyaan cid isku filan maadaama ay sidaas tahay madaxweynuhu uusan soo bandhigin golayaashiisa usoo bandhigin tala ka siinin maxaan ku rahdaay aynu aragno meesha isimo iyo maxaan ku raha madax dhaqameed ay marayso أنا waxaan leeyahay shirkaas inay wax kuma jiraan soo baxay mana mira dhali doono sidaas daraaddeed waxaan ku talin lahaa anigu aan soo jeedinayaa in madaxweynuhu keli talasnimada uu maamulkan maxaan ku rahdaay aan aada u hana qaadin uu ku hayo way ku habboonaan lahayd inuu ka daayo haddii uu dambaysada iyo dadkan maxaan ku rahaa mustaqbalkiisa haddii ay maxaan ku rahdaay la tahay inay samaato ama wanaag la jecel yahay tani tii ay ku wanaagsanaan lahayd maaha ama ku habboonaan lahayd wallahi waa su-aal qiimo badan shirkaasi shir buu ahaa qabashadiisu ay sharci tahay la isku waafaqsanaa lana filayay inay ka soo qayb galaan madax dhaqameed golaha sare ee dhaqanka uqaasha nin garboodka ururada bulshada qurbajoog horaantiiba waxaa muuqatay in golaha dhaqanku aanu kasoo qeyb gelin shirkaasi hadday tahay cuqaal iyo hadday tahay maxaan ku rahay ismada aanba idhaahdo ilaa 3 xubnood oo cuqaalihi waa joogtay shirkaas dadka ku nool gobolada sool sanaag iyo cayn uqaasha ay leeyihiin waxaan filayaa inay 100 cagacageeyaan ama ku dhow yihiin 3 xubnood baan anigu ogahay uqaal tegay shirkaa ballacday isinana maba teginba haddii ay taasi dhacday haddana kolley waa unshiro waa la tegay oo dad baa joogay maxaan ku rahaa ama deegaanka shirki lagu qabanayaba ha u badnaadeen ama xubnayo meelaha ka yimi iyo intii golayaasha ka tirsaneed waxaan la socdaa in 4 qodob ay ka soo baxday shirkaas 4 qodobna nuxurku hal qodob unbuu ahaa Somaliland in lala hadlo unbaa nuxurku ahaa malaha hal qodob baa hal qodob meel isma taageen inta kale wuxuu lagu hagaajinayay laakiin anigu fishin kale ka dhaxalkaa fikir kale iga dhex muuqda oo qodobo ka muhiimsan 4 qodob baa shirka ka soo dhex baxay inkasta oo aan la qorin haddana 4 qodob oo muhiim ah ummadda bulshada reer Khaatuum muhiim ah baa ka soo baxay shirka 4 qodob waxay yihiin qodob waa maxaan ku rahdaa Cabbaas Agjar oo wiilkeeda daawateen 5 jir 6 jirka fikirkiisa ku cabiray inuu madaxdu u sarreysay qarankan Khaatuum oo saaxiibo dhow ahaayeen inuu soo salaamayno oo Somaliland u galeen taasi waxay ka turjumaysaa dareenka bulshada reer Khaatuum ama ha yaraado ama ha weynaado halka Cabbaas ka gartay waxay muujinaysaa wax bulshada ku dhan inay tahay waxa nasiib darro ah mas'uuliyiinta iyo madaxda Khaatuum ee joogtay goobta inay arrintaa dhayaysatay oo arrin miisaan badan leh xoog weyn leh ka turjumaysa dareenka bulshada qodobka ugu muhiimsan ee shirka ka soo baxay qodobkaas oo ahaa waxaa la bixiyay oo isaguna maxaan ku rahdaa cad goodiga golaha dhaqanka loo soo jeedinayay waa isaguna qodob meesha ka soo baxay war horaan u yidhi qoorqabasho biyaha kuma cabto maxaa ku shimbirtu kuma cabtee warisimadu goodi ma lahayn aflagaadana ma lahayn hadda isimadu ma aha wasiiro madaxweynuhu markuu doono uu xilka ka qaadi kara ma ahee waa madax dhaqameed bulsha dooratay in walba ku yireeb ku jeedaa ku caanstay hadday sidaas tahay maxaan ku haddiiba khaladaad jiraan ama aanay bulshada ku hogaamin isimada qaarkood sidii la rabay aanay u hogaamin warday aflagaado iyo goodi iyo maxaan ku rahdaay ma lehe dariiqyo kale leedahay oo loo maro oo suluxa oo waan ah oo wada hadal ah
oo maxaan ku rahdaa ergeyn ah beelaada laakiin goodi male qodobka goodiga ahna meesha waa ka soo baxay oo ismada loogu goodiyay ama maxaan ku rahdaa كل ملاح دقماتكو أنو دقنا هان سدان قوة وحصل دم والله سكر كراوان لقوا ضحى الكرام من اللي هو يسمع من بقول كي بقول إن بدرنا بحاول هذا بالشدة دعوة قوة إن السبب قارئ جيستين وواحد صورة كلام أما واجد تمام لكن ملها ماش در وضل الله عمره مله ما لا قلب كصدق هذا ماش كسر بحيوقها مرخاتي فر أنا اللي يقوم مرخاتي فر يوم ووحنا ويجي كسي وريكه اللي أنا لها محن كراضي وضتش كما دح موقعته أما قاب كم دحونه ودق ما يامها قاب في مام وشقين لها ما والله يوم مكاتفر وشركة سكسوا بعد المكاتفر كده وحتاوه لي قلب كافراد لو حوي كسوا بحشرك يعني دتك بادين سيدا bulshada reer Khartoum ama madax dhaqameed ha ahaato ama maxaan ku raacay uqaal ha ahaato ama nin garbood iyo wax garad ha ahaado ama maxaan ku raacay culimada oo bulshada kaalin aad muhiim kaga jirta oo mugli sida aan ugu soo qayb galin intaas oo maxaan ku raacay bulshada labeenteedii maadaama aan ka soo qayb galin iyaduna waa qodob kale oo muujinaysa oo cadeynaysa maxaan ku raacay rabitaanka bulshada إن أنا محاط على وأرسنين شركة بلعت إنها صورني قلبها صورني قلب شركة اللي قد حديها الكري أنا كده مغني ويا كنت يكون مهم كائن أنا كواس أنا وكائن تاني وقت إن الحكومة ضافر قلب صوصرتي سنة ربع واحد قلب ولو قدر لها أنا في العين وجنها وقلب سيد سومال كعصار لويا لها ولو قدر لها قلب كاس أنت كان إن لجوها جات شيء ولقيت بقى نوريني شركة كل يوم والله محمد هذا أما عندنا هاورها هاتو أما محمد هذا هاتو محمد هذا ما مرشدين هالليلة إلى والله سنة وسود وجود كنا معها وحنا هالربع أنت اللي ربيتهم بها هم درها قطوا أنا ملك استيتوك هذه بريات هذه أي محمد هذا هاي شعبه وحاجة كده ركسنتها هذا عن نارك لأن الله تلماون عندنا اللغة ورمي سدا أنا عباس لغة ورمي وعباس أكثر وواحد أولي هاي واحد دونستيس تاي سدا وقرنني قبل شو ده خاطر ما بس يشوفها وقرن أرنتاس محمد الله وأرن عبد وحنا ما أنا اسمه مضى في السنة وهبل ولا يقام ساعد وكبح على قرنة يا محمد الله مقالة طلعت أنت هبيلو كم هرجيس تشوفي على قرنة عبد الله كل ما يميلو تشوفي ولا بعوض أنا نزول بانها واحد شرين أفكي كم صوب حلو كم صوب ده من وأرن عط أرنداس إن هذا سؤال كوديو إن مدحون الحوان كي بعد مدحوني على خلفية أرنتن مين حبون إن برلمان كي خاتمه لولا نقض أو برلمان كي لا بردقو برلمان كي حيكون إن هين برلمان كلا سكوير أرنتن وده هذا لا برلمان كلا مركز سيدنا كلا مدح ولا شقبته ده برلمان بلون نقول برلمان كي مي برلمان كارنتيس سجى محمد الله وطالع برلمان كو سجى هيدين وشقد سوانو في الماء وإلى كان يمان كنا والله سنة خلال سود على سيد اللوحة قداميني بشر سيد دقال أوريامنت اللي هو سميني سيد اللوجلات دقالمي محمد هذا هلجنكي حرين تاني أنت بالبرلمان حوجال بوا دكتور بوا هدوه كتبان يشغل يسبينا الانترفيو نجوا فيديو سوق هاير وعملوا نجوا فيديو والسؤال هذه قيمة بدل له أنا موقف في السياسة الوعدي هو فرنا وعدا قدرنا وعدي أنا وحروراتي من سنة هنا ونشوفها محمد هاي حلقة كنا وحنا وعداتي قومدين في حرين يوحي هرمر المدة غير خاطمه مستقبل كذا وحنا قنطانا أنت أصبح مبادئ أنا وعلى محمد هاي لو قلت إن الله دري إيش غلي الله أهل أنا وحنا تاجنا مبدئ حرين تأييدين تاعها
taas baan u taaganahay taas baan aaminsanahay taas baan ka shaqaynayaa taas baana nina u daba fadhiisanaya ma dhex arko wax danahoo somaliland ugu jirto ummadda tan reer qaatimo anigu kama dhex arko haddiiba waxaanan noo muuqan ay ku dhex jiraanna dee haddii wax dad ummadda danu ay ka soo baxdo ummadda waa uga qaadan haddii ummadda dani ugu jirto igama se dhex muuqato anigu waxaan leeyahay ummadda reer qaatimo dal iyo dibadda qolqoljoog iyo qolqoljoogba isku tashi aayahooda ah maanta wax waliba way u cad yihiin way arkaan markhaati madoon weeye haddii wixii maxaan ku rahdaa ay tacabku ka galay ay rajo ka qabaan inay taageeraan mabda'a ah xorayn iyo midayn baan u soo jeedin lahaa bulshada reer qaatimo meel kastoo ay joogto aniguna shaksiyan war rajo kama dhigan karo somaliland baa lala hadlayaa somaliland oo cadowgii ummadda tan ah rajo kama dhigan karo aan ku seexdo oo kusoo tooso oo shaqa maalmeedkaygu somaliland baad la hadli doontaan war anigu kama dhigan karo rajo wartaa mid ka duwan oo anigu aan leeyahay oo dadkani ay leeyihiin oo taladeedu annaga ay ka go-do dadka reer qaatimo oran taasaan rajo u arkaa oo wax lagu seexan karo lagu soo toosi karo ama arkaa laakiin somaliland baynu la hadli doonaa absolutely waxaan is leeyahay dariiqyadii ummadda tan wax uga ximaadeen baad moodaa in madaxweynuhu u hoggaan qaaday bulshada tan reer qaatimo waa arkay dad waaweyn oo aan aqaanay oo qaatimo ahaayo arrintaa u sacabatumaya waxay la tahay laac baa u muuqda laakiin laaga ka sokeeyaanay kuwaas adeerto aanay arkayn waa isaga muuqan doontaa madaxweynuhu waxa uu sheegay in wadahadalka somaliland ay dan ugu jirto bulshada qaatimo isla markaana isagu kubiiritaan ahaan ula hadlayn marka arrinta miyaan la odhan karin madaxweynuhu maslaxaad wuxuu u arkaa in bulshada reer qaatimo ay ku jirto in lala hadlo somaliland haddii uu madaxweynuhu arko maxaan ku dhahdaay dee wax keligii arko wax ummaddu la aragtaa ka muhiimsan wuu soo bandhigi lahaa bay la tahay haddii uu wax ummadda dani ku jirto jeebkiisa kuma hayeene wuu soo bandhigi lahaayo golayaashiisa iyo maxaan ku ku-xigeenadiisa iyo mas-uuliyiinta qaatimo buu usoo bandhigi lahaa odhan lahaa wardantan iyo taladan iyo tana iyo tanaa ku jirto annaga wuxuu qurahay noo soo bandhigay gadaalna uuba ka lahaa arrintaas maba jirin qodobadii jidka caynabana la lahaa intaasoo qodoba nimankaas soo aqbalay haddeerna aanbu maqlayo oo aan mas-uuliyiin sare ka maqmaqlayo warkaas innagaa samaynay haddii aanay taladu taa ahayn anigu waa la soo bandhigi lahaa bay adeer ila tahay haddii wax dani ummaddan ugu jirto haddii ay jirto waa la soo bandhigi lahaa lama qariyeen waa muuqan lahayd madaxweyne haddii booskii meesha dagaal laga qaadi lahaa oo dhiig ka daadan lahaa haddii aynu sameeyo in wadahadal lala galo maamulkii si nabadana ay uga baxaan deegaanadii miyayna arrintaas ka fiicnay inta dagaal lala geli lahaa in si nabada ay uga baxaan deegaankii wadahadal lala furo adeer ma muuqato sabab ciidamada somaliland ay deegaanada uga baxaan innagana inagama muuqato oo barasharkeedii iyo maxaan ku dhahdaay ma wadno oo innagii baaba u shaqaynaynaa qaab in ah maxaan ku dhahdaay sidii aanay dhibaataba u dareemi lahayn ciidamada ku sugan deegaanada soolsanaag yani maadaama ay sidaas tahay wax sababaya ama kalifaya inay ka baxaan bismillah waa arrin aada iyo aada u muhiima aadanuhu waxaa la yaabana marka caqliga meel dhowga cabirka aan ka soo qaadanay ninka odhanaya wada tashiga bulshada reer qaatimo ama madax dhaqameedka reer qaatimo cambaaraynaya la hadli mayno iman mayno lama qaban karo una dhiila dhaansanaya mid somaliland leedahay sidii uga qayb geli lahaa
horta arrintaas waa waxyaalaha kulley anigu maskaxiyan markaan isweydiiyo aada ila adkaada ninka kii ay taladooda lahaayeen maxaan ku rahdaa goobta ku wada sugnaayeen ee ay isku nolosha iyo isku mustaqbalka ahaayeen ee isku waajibaadku ka saarnaa bulshada kan leh la shiri maayo shir ma qabsan karaan isuma iman karaan nin kale shafkana u garaacanayo oo soo dhaweynaya ninka maxaan ku rahdaa somaliland wadahadalladeeda war somaliland wadahadalladeeda tanaa ka sokaysa war ilaa aynu innagu wax isla garanno oo labada isugu fogaay wax isla gartaan maxaan ku rahdaa bulshadeenu horumarka ay rabtay gaari mayso anigu waan soo dhaweynayaa wadahadal kasta shir kasta oo maxaan ku rahdaa ama madax dhaqameed ama bulshada reer khaatumo ay yeelanayso oo aayahooda ay kaga tashanayso ama iska weydiinayso ama maxaan ku rahdaa shir dhaqanba ha ahaado ama mid mustaqbalka iyo nolosha wax la iskaga weydiinaya ha ahaado anigu waa soo dhaweynayaa sababo boqolkiiba boqol baan soo dhaweynaya waad ka qabiilsan waa ka qayb gelayaa geed iyo golaba waa ugu tegayaa meesha ummadda reer khaatumo ay ku shirayso ama isku weydiinayso ama dadka kasoo jeeda sool sanaag yacni